isagoo ammaanay nabigu calayhi salaatu wasalaam timirta waxaanu yidhi nicma suxuuru lmu'min nicma saxuuru lmu'mini tamr abi daawuud baa wariye waa saxiix qofka mu'minka ahay waxa uu ku suxuurto waxa u wanaagsan baashaa la yidhaahdo timirta dabcan de haddii aanay qofka dhibaynin dadka qaarkood baa laga yaabaa caafimaad ahaan inay calooshu ku xanuunto markaa waa qofkii aanay wax waxyeella u keenaynin weeye waxaa kaloo nebigu dhiiriyey calayhi salaatu wasalaam xataa hadduu qofku aanu jacayl cunno iyo abateedkiisu aanu fiicnayn inuu sunnaha waafaqo oo xoogaa biyo-aba uu iska cabo ama sharaaba markaasaa rasuulku waxa uu leeyahy sala allahu calayhi wasalam akluhu barakatun falaa tadacuu walow an yajraca axadukum jurcata min maain faina allaha caza wajala wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin cunitaanka suxuurtu waa barako xataa xoogaa biyaahoo la cababa ha ahaato ilaahay iyo malaa'igtiisuna waxay u ducaynayaan ama ay ku salliyayaan salliga malaa'igtuna waa duca weeye ka ilaahayna waa naxariise dadka suxuuranaya ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam qodobka labaadee sunnaha ah ee isla suxuurtaasun la soo xidhiidhaa waxa weeye in la dibdhigo dadka qaarkood horey u isticmaalaan qayb ka mida wakhtiga dhexe isticmaalaan haddii ay kuu saamaxayso ama aada soobo kici karayso inaad habeenkii qaybta dambe ka dhigtood ku dhoweyso waaga iyaduna waa sunne asxaabtii waxay leeyihin radia allaahu canhum anas ibnu maalik iyo zayd ibnu haabit iyo nebigaanu la suxuurinay calayhi salaatu wasalaam waxaana u dhaxeeyey uun wakhtigu nebigu suxuurtay iyo salaadii subax 50 aayadood in la akhriyo waxyaroo 10 daqiiqo meelahaas weeye marka in la isku dhaweeyo aad bay u wanaagsan tahay wakhtigan aynu joognana dadka maatida ah iyo dhalinyarada iyo wax iska badan markuu qofku suxuurto ee hurdada dib ugu noqdo inuu salaada subax ay kaba tagtaba marka sida saxda ah waxa weeye hadduu salaatuleyl tukanayo inuu tukado kadibna suxuurto salaadii subaxna horay ka tago jamaca sidaasaa sunnuhu yahay waxaa iyaduna sunnayaasha ka mida ama ka saddexaada kolley qofkii inuu afuraa waa waajibe oo inuu soomkii shalay iyo kan berrinta isku xidhiidhiyaa waa qalade inuu marka uu afurayo afurka dedejiyo oo markay qoraxdu dhacdo ee la hubsado inay qoraxdii si wanaagsan u dhacday waa inaan la sugin habeenku madowgiisii iyo in shaacu madoobaada inaan la sugin laakiin horey uu qofku u afuro sunnayaashay ka mid tahay nebi maxamed baa inagu dhiiriyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitr xadiidkaasoo bukhaari iyo muslim ku sugan dadku khayr bay ku sugnaanayaan sunnada nebigu khayrkii ay lahayd inta ay afurka dedejinayaan oo xagga hore ay ka afurayaan taasoo macnaheedu uu yahay intaan maqrib la tukanin ka hor maqribka intaan la tukanin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa afurayay waxa lagu afurayana wuu sii ammaanayo inay noqoto rudab waa timirta xasiida haddii la waana timir haddii kalena xoogaa biyaa xasa xasawaatin min maa xoogaa biyaa buu xantoobsanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnayaasha waxaa ka mida qofku inaanu ilaawin ducada bisha ramadaan intuu sooman yahay iyo markuu afurayo labada jeerba ducada ha ogaado hana ku dadaalo cibaadooyinkana kuwa u muhiimsan bay ku jirtaa ducadu waa laga yaabaa inaynu iska yara ilowno ducada inuu ku dadaalo waa sunne nebi maxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiid bayhaqi warinayo saxiixa 3 qof ducadooda lama celiyo ducaau lwaalid liwaladih wa ducaau lmusaafir wa ducaa almadluum wa fii riwaayati ukhraa wa ducaa asaa'im qofka sooman iyo waalidka iyo qofka musaafirka ah 3daa qof ducadooda lama soo celiyo marka haddii lagu yidhi ducadaadii lama celinayo waa fursade ka faa'iidayso wakhti walba ku celceli udcuunii astajib lakum
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وآيات كاسو كجرا آياتها الصوم كدحدودا وقتها وقفك أفرينا وإنو دعيستايو أثر أبي داود ورنا حسن لقلت البابين نبي وحا كالصغان إنه عليه الصلاة والسلام ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هراتك وانا قتغي حديدين ويقوين أجرقين واسقمي يا أبا المرنتان إلهي كالسغين سيدا سيبو كدو عيستنا يا ونبي كدو عيستي عليه الصلاة والسلام waxyaabaha sunnaha waxa kamida intan uu qofku sooman yahay inuu isku dayo khayrka noocyadiisa kala duwan inuu ururiyo aanu soomka kaliya ku daynine waxyaabo badan oo uu isu geyn karo si cibaadooyinku ay isu dul baxaan Abi Hurayra waxa uu warinayaa ama nabiga ka soo maqlay calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix muslim ku sugan oo nabigu tartan galiyay asxaabtiisa xagga khayrka si ay ugu tartamaan marka rasuulku wuxuu su'aalay oo ku yiri man asbaha minkum al-yawma saa'ima maanta yaa idin kamida ee waagu u bariyay iyadoo oo uu sooman yahay waa soomkii sunnaha Ramadaan lama joogo Abu Bakar baa yiri aniga maanta yaa jinaasad raacay qof muslim oo dhintay ama ehelkiisa ha ahaado ama ummadda kale yaa raacay Abu Bakar baa yiri aniga Allah ka raali noqdo waxaadana saddexaad oo nabigu weydiiyay qof miskiin ayaa wax siiyay Abu Bakar baa yiri aniga mar afraad buu weydiiyay wuxuu maanta yaa soo booqday qof buka oo bulshada islaamka kamida Abu Bakar baa yiri aniga marka rasuulku wuxuu ugu bushaareeyay sallallahu alayhi wasallam oo yiri majtama'na fi imri'in illa dakhala al-janna afartan arrimood qof haday ku kulmaan ilaahay jannadu galiya jannadu qofkaasi gala marka inaguna waa ku dadaalayna arrimahaas oo dhamina way yaalaan dadku waa ka maalin walba dhimanaya saakiintii way ku hortaagay bukaankiina agtaadu jiifa soomkiina waa ku diyaar cibaadooyinkaas inaad badiso ayaa marka aynu u baahanay dhamaanteen masaa'il mu'aashara fi siyaam waxaynu intaasi raacin lahayn waxyaabo masalooyin oo dhowra oo casrigan iska jiro oo waxyaabo casrigu wuxuu wataa wax la yiraahdo nawaasi masaa'il cusub markuwaas aynu ka qaadan lahayn dhowr 8 mas'alo meelaha waxa kamida qofku hadii uu safar ku jiro safarkiisa aan istina ama aanu dheeraynba ama muriix u yahay mid iska raaxa leh oo wax tacab aanu dareemayn miyuu soomi karaa mise waxa la oranayaa qofkan inta tacab ma dareemin miyuu afuri karaa mise waxa la oranayaa ha soomo inuu soomaaba u banaan qofkii waanu afuri karaa waanu soomi karaa labadaba waxaan leeyahay soomkii iyo afurkii labadiiba way u banaayeen wuu afuri karaayo waa musaafir safarkiisu raaxaba hal ahaado waanu soomi karaa laakiin laguma dacweeyo qofkan mashaqo iyo dhibaato may soo gaadhin wax safaraba mu dareemina gurigiisa inuu joogo kale ka dhigan tahay ha iska soomo lama oranayo waa u banaanta waxa kale culimadu ay isku khilaafaan waxa la yiraahdo toobinka culimada islaamku waxay u badan yihiin inaanu dhiiga la iska soo daynay la iska toobaya ama markuu qofku uu sarsara uu iska soo daynaya aanu soomka jabinaynin laakiin qayb kamida culimada qaba inuu jabinayo maadaam qofku uu daciifayo tabardara ay ku imanayso khilaafna ka jiro inuu maalintii iska daayaaba u wanaagsan laakiin soomka kama jabinaya culimadu badan waxa isla waafaqseen inaanu jabinaynin dhiiga yara laga qaadayo hadiya jeer qolada shaybaarku ay naga qaado kaasina wax dhiba ma laha waxay culimadu isla waafaqsan inoo kale inuu soomka jabinayo xuqnada iyo sucuudka waxa la yiraahdo qofka afka inuu naqaan inuu wax ka soomka wixii ka galaa
كجبيه سنكي wax laga shubay ama dabada wax laga shubay sida dhaqaatiirtu mararka qaar kood qofka xagga dambe wax kaga shubaan dawooyin ama waxay ku maydhayaan ama wax noocaas oo kala ah taana waxa la isla waafaqsan wixii sanka laga shubay qofka iyo wixii sharjiga dabada laga shubay labaduba inay ka jabinayaan oo asxaabigi rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam wabaalig fi istishaaq illa an takuna saa'ima asxaabigi la qowd wuxuu ku yiri markaad sandaarsanayso biyaha kor في فدا إلا إن تصومن تاي موياني حتى تصومن تاي في فوراني وي معناه ذو كاتشبينيا كليها يا مايرستودا dadka qaar kood ba macaan qabo kaliyaha loo maydhaa marka haduu sooman yahay maydhitaanka kaliyaha qofkii loo maydhaya uu ka jabinayaa iyadana sidee culimadu badan yihiin waana xaalad baab ku sugan yahay qofkaas uu dhiban yahay soomka inuu isku kalifabo ma hadii uu heer ka gaaro baashan la yiraahdo bukhaakhu rab xiiqda waxa lagu buufiyaa dadka qaar kood ay haysaa ay isku yara buufiyaan bahal yaro bukhaakh la yiraahdo kasii deynays waa hawo yaro markuu qofku afka saa ugu buufiyo waxay ka jaraysaa diiqu nafsiga iyo naqaskii ku dhaganaa iyaduna waa sida oxygen tan qofku neefsanayo iyaduna waxba kama yeelayso soomkii uu iska isticmaali karaa masaa'ilka waxa kamida masalada toddobaad dadka wadna xanuunka leh dhaqaatiirtu waxay siiyaan kaniin carabka hoostiisa la geliyo oo markuu halka ku haynayo wadnaha uu u wanaagsanaanayo culayskii ka haystay uu ka fududaanayo xaaladiisu caadi ku noqonayso kaniinka uu halka gashaday waxba yeeli maayo hadii uu maxluulka ama wixii muudka ha iska tufayo muudkii uu tufaya carabka hoostiisana ugu jira caafimaadkiisina uu uga hagaagaya ee cunno liqayna ma hawaan iska tufo muudka masalada sideedaad waxa weey dadkeena safarku iska badan yahay waxa laga yaabaa qofku inuu isaga oo sooman oo safar galo ama soo dego oo isaga oo sooman uu safarkii galayo marka waxa dhacda intood afurto inay diyaaraddu kula kacdo diyaaradana marka dee joogeedu dheeraado qorraxdii baad arkaysa illa qorraxdii may dhicina way sii socotaa marka taas oo kale maxaa la yeelayaa qofkii ma waxa la oranayaa qorraxdii waa kan arkay soomkii ha qaleeyo mise waxa la oranayaa mar haday u dhacday isagoo dhulka jooga maalinkaasi saas ugu dhan waxay taa dambe culimadu u badan yihiin meeshii uu joogay kol haday qorraxdii ka dhacday oo uu ku afuray qorraxdan dambe diyaaradda dusheeda uu ka arkay ku xisaabtan male waxa weey maalinkiisa isaga uu dhamaaday maalinkii thumma atimu siyama ila layli buu ilaahay soomka dhamaystira ilaa inta la gaarayo habeenka dee uu gaaray tanina waa ka dabatagu ka daba guuray qorraxdii inta ilaahay nagu adoonsaday uu sameeyay qofkaas taa waxa cagsigeeda hadduu qofkii diyaaradii fuulo iyada oo qorraxdii wali aanay dhicin oo ay la socotay muddo dheer kawada ku sii jirto ma wuxuu oranayaa meeshan ka soo kacay qorraxdii way ka dhacday waan iska afuraya mise halka uu ku degayaa buu ku xisaabtamaya ta dambe weey ila qorraxdii wali uma dhicin qofkii